waxaan necessary ahayn in MOU-gii kharibnaa oo aynu ka dacwoonayno oo nari waa khariban yahay ay ku doodeen oo keensadeen oo ku dareen dacwadooda waxay ahayd absolutely unacceptable CLCS in lala dhiil gareeyo si process go'aan loo gaaro oo heshiis looga galo continental shelfkaagu beyond EEZ-ga 150 kale oo aad dalban kartid marka labadaadii 100 haysatid 150 kale oo dheeraad oo badweynta sii xigo aad dalban kartid si aan u dalbano annaga iyo Kenya aan heshiis ka galno maadaama aan darisnahay inaanan isku haysan dhul iyo bad midna therefore aan saxiixana heshiis ah continental shelfka yaga oo ah kii hadda aan idin tusay oo fogaa continental shelfka yaga inaan dalbano 150 kiisi si aan application kayga marka loo aqbalo waa in la helaa approvalka Kenya kooda si loo aqbalana waa in Kenya la helaa maxaa la sameeyay marka wixii ay diyaarisay Norway oo ku saabsanaa labadiinuba eligible ba u tihiin inaad dalbataan xilligeediina wuu dhacayaa May buu ku egyahay dalbada ahaa labada qoloba qolo Soomaaliya ku jirta baa bedeshay ninkii Ebil la oran jiray ninka in aad loogu fiirsan jeclaan lahaa isagoo aad u difaacay MOU-gana wuxuu ku jiraa meel kasta MOU-ga isagoo difaacayo la sax bay ahayd dalkan difaacaynay bara ciddu u akhriyay isaga yaqaan cidii aan wax garanayn ha u sheego laakiin ma ahayn difaac dalkeena la difaacay khiyaamo ahayd saasaa keentay Norway inay tiraahdo anagu bari baan ka nahay MOU-gaas ma aha kii aan qornay waa la bedelo labada qoloba waa bedeleen waxa MOU-ga marka maxkamadda marka la tagay 4 qodob labana Soomaaliya ku doodaysay laba qodobna Kenya ku doodaysay 4tii qodob waxaan ku hormarayaa labada Kenya ay ku doodaysay markaan leeyahay MOU-ga shalay iyo maanta shalay wuxuu ahaa arrin annaga col nagu abu ah oo nala diriraya oo dhibaato gelinaya khatarna gelinaya dalkayagii meesha hadda aan joognana keentay iyo inaan maxkamad isku haysano annaga iyo Kenya kadib markaan 49 sano xor ahayn annagoo 49 sano xor ah aysan dacwo qabin ay dacwo cusub naga xiraysato ah inaan isku haysano badda delimitationka diilintii hadda aan idin tusay ay nagu haysato ma arkaysaa ay nagu haysato MOU-gana keenay laba qodob bay ku doodaysay waxay tiri marka koowaad maxkamadda looma baahna markii Soomaalida ka qalqaalsatay way register garaysatay submissionkeedii bay geysay markii Soomaalidu ay ogaadeen oo la hadleen oo la yiri maxaa meesha ka socdana waxay tiri aan wada hadal bay ahayd aan wada hadalno laba shir baa lagu galay Kenya labadii shir oo kale oo Muqdisho lagu ballamay labadiiba waa gooyeen Soomaalidu marka waa dacweeyeen dacwadaas laba qaybood bay ka kooban tahay number 1 qayb fiican oo ah in la dacweeyo oo la iska dhacsho oo marka hadii ay diiday negotiation iyo inaan ka galno wada heshiis marka loo sheego UN-ta loo sheego inaanan heshiis ahayn laakiin cilada ku jirtay waxay ahayd MOU-gii hore oo baarlamaanku dilay according to Somalia iyo positionka Somalia inkastoo indhaha internationalka uusan dhiman sababtana waa idin sheegay oo u dhiman wahay oo caqabada inuu ku noqday maxkamaddii hore hadeerna uu noogu noqon karo wax aan anagu ku doodno isku difaacna dad baa marka waxay halka ka dhexdeeyaan maadaama aan anagu hadda isku difaacayno MOU-gii wax fiican buu ahaa that's not the case and I will prove that Kenya waxay tiri marka koowaad maxkamaddu jurisdiction naguma leh laba qodob bay ku doodaysaa maxkamaddu jurisdiction naguma leh maxay tahay maxkamadda Kenya waxay ka mid tahay wadamada ka istaagay markii horena saxiixay maxkamadda inay ogol yihiin 1963 markii dambana ka noqday observers ka noqday ka istaagay oo yiri annagu waxaanu ka nahay reservation ka qaatay reservation inaynu xukunto qadiyadaas waxa la yaxba kama jiraan number 1 oo 1963 baad si fuul ah u saxiixdeen oo nin Murambi la yiraahdo oo wasiirka arrimaha dibadda ah u saxiixay waxa la yiri waxa tihiin dad soo hoos gala maxkamadaanuna jurisdiction bay ku leedahay qodobkoodii waa laga diiday qodobkii labaad ay ku doodeen wuxuu ahaa annaga iyo Soomaaliya MOU baa naga dhaxeeya MOU macnaheedu waa wada hadal iyo heshiis ma aha maxkamad this is the last resort marka ugu dambaysa meeshaan imaan lahayn way uma baahnayn maxkamadan therefore Soomaaliya iyo annagu aan wada hadalno ayadana waa laga diiday waxa la yiri MOU-ga qaybtoodii warqadoodii ayagu ay gudbisteen baleeg meesha ugu hooseysa waana qodobka Soomaaliyana baarlamaankeeda caqabada ku noqday waxa ku qoran laba waxyaabad ba ku qoran
marka la saxiixo buu hirgelayaa daqiiqada la saxiixo MOU-gan buu valid yahay oo hirgelaya baa ku qoran kow labo oo time ma leh aan kaga fakarno ama aan kaga noqonno ama aan kaga baxno ma leh kow labo wuxuu leeyahay oo ku qoran forcible waa la khasbayaa ama waa la fulinayaa oo si xooga loo fulinayaa waxyaabaha MOU-gan uu xambaarsan yahay waa kooday ku qoran tahay Soomaaliya qoladii la shaqaysanaysay iyaga oo ninka hadda aan magacaabay wasiirka arrimaha dibadda ah uu ka mid yahay I believe inuu ka mid yahay iyo ra'iisul wasaarihii hore marka dambana soo noqon doona oo ku soo noqon doona bedeli doona dadkii meesha joogay Cabdiraxmaan Baylo maxkamadda geeyay ka tuuri doono iyagii lagu celin doono Cumar Cabdishiid la keenay Baylo laga tuuray kii baa la soo celiyay berigii hore joogay maxaa loo soo celiyey adba ii sheeg adiguba garo anigu ma garanayo laakiin waa fishi waana shaydi waa arrin tuhun keeni karta kharibanna aan la fahmi karin marka muxuu yiri waa forcible waa la fulinayaa xoog baa loo fulinayaa maxkamaddu marka waxay ku tiri maadaama aad tirahdeen waa forcible dee waa ka baxdeen heshiis way ka baxday arrintu xoog bay taagan tahay wax la xoogayo la khasbayana waa inay legal process martaa therefore maxkamaddan ay Soomaaliya keensatay xaq bay u leedahay waana valid mana aha illegit waana aqbalaynaa maxkamadduna waa soconaysaa labadaa qodob oo Kenya ay wadato ku doodaysay saasaa lagu diiday ma aha MOU-gu inuu inagayna sabood garaynayo saa loo diiday ma aha macnaheedu MOU-ga markaan ku doodayna waxaan ku doodaynaa Kenya iyadaa contradiction isku samaynaysaa marka koowaad waxay aqbalaysaa UNCLOS processkeedii oo annaga negotiation nagala gelaysaayo heshiiskii bay ku dhex jirtaayo maxkamaddii ay saxiixdeen waa ogoshahay markii maxkamad la yiraahdana ma ogolin maanta waxay lahaayeen qolyaha politicianskooda waad maqlayseen shalay iyo maanta iyo doraad iyo qaylada ka baxaysa waxay leeyihiin maxkamaddaas waa arbitration maba aha maxkamad maya adjudication wey maxkamad xukun ridda xukunkeeduna uu soconayo wey laakiin waxay rabaan inay dadka maskaxdooda khaldaan labadaa qodob waa laga diiday Soomaaliya maxaa la yiri Soomaaliya waxay tiri waxay ku dooday MOU-gan baarlamaanka iyagii baa kansalay waxaa lagu yiri MOU-gaad saxiixdeen waxaa ku qoran inuu hirgelayo dhaqan gelayo daqiiqada la saxiixo marka waqti laydin ma siin oo baarlamaankiinu August 1 markuu shirayo Aprilna la saxiixay 4 bilood maba haystaba waqti waaba dhamaatay sheekadiisu MOU oo MOU-gaasi waa valid internationally valid ma aha bay Soomaalidu ku doodaysaa qodobka labaad Soomaaliya ku dooday wuxuu ahaa constitution-ka iyaga sharciga iyaga dastuurka iyaga waxaa ku qoran qofka keliya oo saxiixi kara xeer caalamiya iyo heshiis caalamiya waa madaxweynaha ninka warqadda saxiixayna madaxweyne ma ahayn waxaa lagu yiri iyadana waa la diiday oo waxaa la yiri arrintaasi waa local constitution sharcigiina idin gaarka ah weeye international law ma aha maadaama uusan international law ahayn maxkamaddu waxba ka soo qaadi mayso qadiyadaasna Soomaaliya waa laga diiday marka maxaa soo baxday Soomaaliya oo la yiri MOU-gi waa idinku taagan yahay isagaana lagu kala baxaya maxkamaddana lagu tagayaa Kenya oo lagu yiri maxkamadda waa ku khasbantay inay gasho labadaa qodob baa soo baxay waxay ahayd Soomaalidu marka inay doodoodii aysan ka noqon haba yaraatee aysan bedelin oo ay ku taagnaadaan MOU-gani ma jiro wax khariban weeye waa fake and shady business dad ma garanaysaa dana ka qaatay oo dana kala qaatay waa isu saxiixay dalka iyagu ma aha ma garanaysaa meel muran iyo dood iyo buuq ku jirta ma aha maanta muxuu kaga duwan yahay MOU-gi isaga aha waana qadiyaddan rabo inaad fahantaan oo ay rabaan inay halkaa kala soo dhexbaxaan wax fiican buu ahaa no MOU-ga maanta wuxuu kaga duwan yahay waxaanu ku doodaynaa haddaan nahay Soomaaliya waxaan ku doodaynaa MOU-ga ay qoratay Kenya ayaa iska hor imaanaya iyada ka hor imaanaya mar waxay ku doodaysaa waxaan u baahannahay wada hadal haddana waxaa ku qoran oo language-kiisa ka mid ah inay tahay xoog iyo khasab in lagu fuliyo oo maxkamad ma ogolin marka maxkamad ma ogolin waa forcible haddana negotiation iyo heshiis weeye oo MOU weeye intaasaa iska hor imaanaya looyaradu waxay ku doodayaanna waa intaasaa marka waxaa lagala soo dhexbahayaa siyaasiyiintii dhibkan keenay iyo kuwo iyaga taageersanoo asxaabtooda ah inay buufiyaan warar aan naf iyo tabar midna lahayn oo ah MOU-gu wax fiican buu ahaa
waxa kaloo jira waan arkay hadal uu duubay xerilaaliyihii hore isagaan rabaa inuu ka jawaabo waa wacay doraad waa rabay inaan waraysto haddana waa ku casumaya halkan inuu bal ka jawaabo kilib yar oo la wareejinayo uu leeyahay waxaan MOU-gu wax fiican buu ahaa dadkii sameeyena credit bay xaq u leeyihiin arrintaas sax maaha factually waa wrong waxaa la rabaa marka xeraaliyuhu inuu isagu ka jawaabo xilligaas dadku aad uma aqoon waxaan warna kama hayn in badan oo kamida yani it's evolving every day by the day marka lasii akhriyo lasii socdo oo doodeedu bilaabato maxkamad lala galo yani way sii soconaysaa markastoo ay sii socoto waxbaa laga sii baranaya arrimahaas marka waxaan rabnaa inuu xeraaliyuhu isagu ka jawaabo maalinta hadalkii uu yiri maxaa ka saxnaa maxaase ka khaldanaa maadaama wax badan laga ogaaday gadaal maadaama xeerarka iyo sharciyada badda iyo adduunka maalin walba aan baranayno oo kayskaanuna barayo na tacliiminayo oo isagu uu ka mid yahay dadka baranayo fahmaya waxa uga iska bedelay mowqifkiisii maalintaas yaa loo baahan yahay arrintaas sax ma ahayn cidda hadday rabta inay isticmaashaana sax maaha saasay u kala duwan MOU-gu shalay caqabad buu ku ahaa Soomaaliya maanta wuxuu caqabad ku yahay qoladii saxiixatay oo keensatay oo Kenya ahayd maxaa yeelay maxkamaddii bay ka carareen sababtay uga carareenna maxay tahay MOU-gaa dilaya MOU-gu muxuu yahay muxuu ku dilayaa labada hadal oo ay ku kala qoreen iyo waxyaabaha ay ku dhaqmayaan baa iska hor imaanaya contradiction bay samaynayaan midda kale MOU-ga qaybtiisa korodhan waxaa ku qoran CLCS iyaguna waxay u isticmaalayeen oo u bedeleen oo ay bahalka geliyeen delimitation borderka noo dhexay xariiqda dilinta annaga iyo iyaga noo dhaxayso aan hadda idin tusayey ayay u bedeleen isbedelkaas iyo khiyaamadaas iyo iska hor imaadka languagekii meesha ku qornaa iyo actionkooda iska hor imaanaya iyo maxkamadda ay la dirirayaan oo ay leeyihiin hadda doodooda ugu dambaysa ay ugu weyn tahay maxkamadda nin Soomaaliya ku jira nin Soomaali Cabdiqawi laga saaro maxkamadda haddii la rabo inaan maxkamadda aqbalno maxkamad cadaalada maaha ma garanaysaa iyo qodobka labaad ay ku doodayaan oo ah COVID-19 baa jira COVID-19 Soomaaliya ka liidata oo aan dhakhaatiir iyo daawo midna haysan dal burburayna ah still waa diyaar waana dagaalamayaan COVID-19 marka excuse adiga keligaa kuma noqon karo waa markii ugu horreysay oo ay maxkamaddani ku qaado COVID-19 ay ku qaado Zoom ku qaado case-kii ugu horreeyay wey of course case-kii ugu horreeyay wey because waxa pandemic waa wax cusub inaan laysu dhowaan karin oo laysu tegi karin pandemigaa keenay ama COVID-19 baa keenay waana wax cusub wixii cusub oo yimaadana sida loola dhaqmi karaa loola dhaqmaya arrintaas marka waxaan kaga gudbayaa MOU qodobka labaad aan u gudbaya waxa weeye all of a sudden waxa dhacay ma naqaan mucjisaa dhacday nimankii mucaaradka ahaa oo laga kari waayey 4 bilood oo lasoo dhaafay laga kari waayey oo Kenya iyo Soomaaliya dirirayeen Kenya ka hadla arrimaha Kenya iyo badda ka hadla oo afkooda u xirnaa kelmad aan soo qaadin Kenya ku saabsan iyo badda midna hal mar xataa kuwii saxiixay mawjada oo isku tuurtuuri jiray kelmad aan ka qorin hal kelmad aan ka oran qalinkooduna uu xirnaa oo aan Twitterkoodii waxba ku qorin hal mar bay soo wada yaaceen shalay markii maxkamaddii ay diiday Kenya inay timaado dee waa loo fasaxay waxaa la yidhi hadda waad ka hadli kartaan laakiin hal dhinac bay ka hadlayaan weli hal dhinac bay ka hadlayaan waxaanu garab taagannahay oo taageersannahay dowladda Soomaaliya inay baddeedii ku guulaysato deyno inaan guulaysanayno marka waa kugula daaranayaa rootigaan kugula dhuuqayaa maraqa weeye dabkaan kugula qabsanayaa arrintaasi ma shaqaynayso it's too late for you waxay leeyihiin badda baan taageersannahay Soomaaliyaan taageersannahay xeer ilaaliyayaashaan taageersannahay waxa kaloo jira wararkii hadday aan ku bilaabay hadalka oo ah dad dhahaya la soo dhaweeyo yaan la cayrin dadka yaan la kala qaybin midnimada loo baahan yahay midnimo loogama baahnaa ninkii dhibaatada geystay waxa loo baahan yahay inuu face gareeyo ama ka hor istaago yani sharciga inuu sharciga hor istaago oo uu isbaraxo ama dambiilo noqdo ama uu beri noqdo markaa ama laga haro dadkiisa uu ku soo biiro ama laga kaxeeyo wuxuu xaq u leeyahay uu maro inay weli siyaasadda ay iyagoo aan maxkamad marin oo aan maxkamadi sii dayn ay weli siyaasadda dan kale yihiin nimankii iyaga ahaa waa cajiib aad bay cajiib u tahay waxaan rabaa in loo fiirsado laba nin actionkoodii ku saabsanaa MOU-ga laga bilaabo ilaa intii ugu dambeysay oo ay siyaasadda ku jireen labadaaba in aad loogu fiirsadaan rabaa
labadani Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke iyo ninka la yiraahdo Cabdisalaan Abi ninkii corruptionkii shirkadii weyneed oo Nairobi ka dhacday oo UN monitoring group ay qarxiyeen iyo lacagihii Soomaaliya keedkeeda ahaayoo la dhacay oo ninka la yiraahdo Xasan Sheekh Maxamuud iyo raggii isaga camalow iyo ay ku eedeysan yihiin oo ninkii lawyerka u ah maxkamadda saaran yahay iyo Soma Oil intaasba in aad Soomaalidu u fiirsataan u baahanay Soma Oil lawyerkeedii buu ahaa khayra ninkii difaacay buu ahaa khayra Soma Oil wuxuu ku leeyahay intaas oo share buu ku leeyahay 2 million shares baa la sheegay inuu ku leeyahay so 20 million shares whatever lacag aad u badan ninkii lawyerka u ahaa waa ninka maxkamadda ku saaran Maryland oo federally charged ah inuu Soomaaliya lacagteedii dhacay baa loo haystaa nimankii lacagta la qaaday oo bangiyada shellka ah ku shubay dibadda ah ku shubay akoonada dibadda ah ku shubay oo company-ga u samaystay oo company-ga ninka sameeyay uu yahay ninka Cabdisalaan oo wasiirka arrimaha dibadda ahaan jiray arrimaha Soomaaliya inay daba gasho ragga dabagalka sameeyo oo wariyaasha ah arrimaha waa inay dabagal ku sameeyaan arrimahaasi arrimo waxa way kulligood u baahan ra'iisul wasaarihi muxuu sameeyay markii uu joogay MOU-ga isaga amarka siiyay sida uu sheegay Cabdiraxmaan Cabshakuur inuu saxiixo isaga ra'iisul wasaaraha isaga madaxweynihiisa amarka siiyay sida uu publicly u sheegay kow laba muxuu sameeyay baarlamaanku markay soo saareen xeerkoodii hoos buu dhigay ilaa Kenya ay submissionkeedii gaarto ilaa deadline baa jira deadline-ka lagu siinaya waxa lagu leeyahay MOU baa saxiixateen ha ilaa muddadaas baanu sugaynaa inay ka hadlaan MOU-gaas qoladaas ay ka dacwoodaan haddii diidan yihiin marka waxay ahayd inay bloggareeyaan submissionka haddii la geyn lahaa qadiyadda baarlamaanka submissionkoodu waa bloggareysmi lahaa the first day of submission ayaa warqadda la keenay oo Umar Cabdirashiid uu sii daayay waa la sugay maalintii iyagoo ku dhex jira submissionkii oral submissionkoodii oo la dhageysanayo fadhigii 24aad qolada CLCS-ka fadhiya iyagoo la fadhiya oo la dhageysanayo baa warqadda la keenay Soomaaliya arrintaa u fiirsada waxaa kaloo akhridaan sababta ku kaliftay Umar Cabdirashiid warqadda uu qoray oo uu leeyahay waanu u ogolnahay Kenya raalli baanu uga nahay after that raalli baanu uga nahay inay badda magaranaysaa hawlaheeda qabsato ayadana dib u fiiriya waxaa kaloo dib u egtaan sababta loo soo celiyey oo loogu soo celiyey ra'iisul wasaarnimadii waxaa kaloo eegtaan yuu isna soo celiyey ninkii wasiirka ahaa Cabdisalaan Abi not only the corruption keliya maaha qadiyadda badda ninka xiriirka u ah Soomaaliya iyo Kenya isagu ah ilaa 5-6 email baan haynaa oo ay isdhaafsadeen isaga iyo madaxda Kenya oo ku saabsan arrimahaas iyadana dib ha loo eego oo ha la baaro yani ninka coordination-ka sameeyay shirkii wasiiradu ay galeen heshiiskii MOU-ga la keenay laga akhriyay ee la saxiixay ninka dib u soo celiyay kelmadda bedelay to each other Soomaaliya ha lagu daro oo bedelka sameeyay ay dhahayso Norway anagu shughul kuma lihin tan Kenya anagu shughul kuma lihin tan Soomaaliya shughul MOU-gan qornay MOU wuxuu ahaa labadoodaba cadaalad u ah aan cidna gardarro ku ahayn laakiin haddeer iyagii baa ka baxay oo wax kala qortay anagu shughul kuma lihin beri baan ka nahay ay taagan yihiin ninka coordination-ka sameynaya kalimaadkana loo soo dhiibayay ninkaas u ah ciddii u soo dhiibaysay maaqan laakiin waxaa la oran karaa Kenya u daneynaysay isbedelada uu ku sameynayay iyo waxyaabaha uu soo tarxinayay iyo waxyaabaha uu keenayay intaasoo dhan waxay u baahan tahay in dib loo